بسم الله الرحمن الرحيم. أو أحكبرنا ويدينته what is a financial system. Financial system أما النظام كمالية وهي أذو ماليات أو دورة أو هدانا إسلام يستريا كواس أو إنو صورة جلية إنان إسوي دارسن كرنو مالية أيضا ليسكو كينيو dadka haysta lacagta dheeraadka ee loo yaqaano surplus unit si ay u adeegsadaan qolada lacagta u baahan ee loo yaqaano deficit unit. Financial systems ama nidaamka maaliyadda waxaa ka tirsan hay-ado dhowr ah sida bangiyada, caymiska, bangiga dhexe, suuqa warqadaha maaliyadda iyo kuwa kale. Haddaba nidaamkan maaliyadda si guud waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 5 hay-adood ama nidaam kuwaas oo kale ah: 1 money ama lacagta, 2 financial institutions ama financial intermediaries oo ah hay-adaha maaliyadda, 3 financial markets oo ah suuqa lagu kala iibsado warqadaha maaliyadda, 4 financial instruments ama financial securities oo ah warqadaha ama shahaadooyinka maaliyadda, 5 waxaa ah central bank. dhammaantoodna waxaan ku soo qeexnay cashiradii hore. si aad faahfaahin dheeraada uga heshid fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo 5tooduba aan ku xusnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabeedmo.